misleedahay guul lama gaaro oo ma ku fikirtaa adigoon lacag haysan inaadan noloshaada horumarin karin. Assalaamu calaykum. Waa muhaddis Player Unknown's Battlegrounds iyo farshaxamiiste, waana aasaasaha geemka adduunka qabsaday. Magaca geemka PUBG ama PUBG wuxuu ka iftiimay dhammaan wadamada adduunka, laakiin mar walba guul kasta oo la maqla waxaa jirta sheeko ka dambeysa oo ku qarsoon guushan weyn. Waxaan ka hadlaynaa sheekada Brendan Greene ama sida lagu yaqaan Player Unknown. Abuuraha ciyaarta PUBG Brendan Greene oo asal ahaan ka soo jeeda Irish wuxuu dhashay 1980 waana 40 sano jir, wuxuuna 1998 ka baxay dugsiga sare, kadibna wuxuu jaamacadda ka bartay farshaxanka. Riyadiisuna waxay ahayd inuu noqdo actor ama jilaa, laakiin wuxuu ku guul dareystay inuu gaaro hadafka, balse ma uusan quusan oo wuxuu bilaabay inuu raadso xirfad kale si uu lacag u helo una caawiyo qoyskiisa. Laakiin wuxuu la kulmay caqabado badan oo ka jiray dalkiisa, wuxuuna bilaabay inuu u haajiro dalka Brazil. Wuxuuna rabay inuu yeesho xirfad kale, balse halkaas kalama uusan kulmin wax aan ahayn guul daro. Intaa kadib Brendan wuxuu go'aansaday inuu ka shaqeeyo dhanka iyo fanka, taasi oo ahayd riyadiisa. Inkastoo uu curiyay dhowr muusig una soo bandhigay shirkado fara badan oo soo saaro muusiga, laakiin isagu wax guul ah ma helin oo wuxuu ku dhuftay darbigii guuldarada mar kale. Halkaasna Brendan wuxuu ku bilaabay inuu wajaho cawaaqib xun oo ka dhalatay guuldaradiisa oo noqnoqotay, waxaana halkaa ugu dhaqaaqday xaaskiisii iyo dhammaan qoyskiisa. Sidoo kale waxaa ka tagay dhammaan asxaabtiisa. Ugu dambeyntii Brendan wuxuu daawaday filim Japan oo lagu magacaabo Battle Royale, wuxuuna jeclaystay fikradda filimka oo wuxuu rabay inuu u bedelo video game isagoo fikrado badan ku darayo. Runtii wuxuu bilaabay inuu dejiyo qorshihiisa si fikraddu u noqoto ciyaar video game ah. Markuu dhameeyayna wuxuu u gudbiyay shirkad lagu magacaabo Blue Hole, waana la aqbalay. Brendan wuxuu bilaabay inuu horumariyo ciyaarta PUBG oona sidata magaca caanka ah ee Player Unknown Battleground. Brendan wuxuu ururiyay in ka badan 200 milyan oo dollar 4 bil gudahooda. Brendan hadda wuxuu noqday mid ka mid ah dadka adduunka ugu taajirsan, wuxuuna leeyahay shirkadda PUBG Corp. Dhawaanna wuxuu shaaca ka qaaday inuu shirkaddu ku soo dari doono koox cusub oona ka shaqeeya geemka, uuna ku soo dari doono farsamooyin cusub. Sideed u aragtaa sheekada guusha Brendan? Miyaad u aragtaa inay tahay dhibaatooyinka nolosha inay ku jiraan horumarka guusha?